maktabadda qaranka oo qayb ka mid ah lagu sameeyay dib u dayactir iyo howlgelin ayaa waxaa maanta xariga ka jiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mas'uuliyiin ka socday jaamacadda ummadda iyo akademiyadda fanka cilmiga iyo sugaanta. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay maktabadda qaranka gaar ahaan qaybta maanta la howlgeliyay waxaana ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay dhameystiri doonto dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay maktabaddu maadaama ay muhiim u tahay ummadda Soomaaliyeed oo leh taariikh soo jireena iyo dhaqan wanaagsan oo u baahan ilaalin. waxaan ka shaqeynaynaa meeshaan in la dhiso hadii la yiraahdo si ummadda Soomaaliyeed ay ugu manfaacsato lagu soo celiyo siday ahaan jirtay si dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ugu bartaan. wasaaradda waxbarashada ayaa ka shaqeysay howlgelinta qaybtan ka midka ah maktabadda qaranka oo laga heli karo buugaag kala duwan iyo meelo lagu akhrisan karo taa oo fursad siinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbarata iyo kuwa qorayaasha ee doonaya meel ay ka helaan raadraaca taariikhda dhaqanka iyo cilmiga. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri oo waraysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka ayaan wax ka weydiiyay ahmiyadda maktabaddu u leedahay ummadda Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay qaban doonto. maanta waxay ku soo kordhinaysaa wax aad u weyn baahi weyn ayaa loo qabay in la helo maktabad qaran taasoo aan runtii u furan dhalinyarada waxbarata ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. sida la socoto dalka waxa ka jira iskuul aad u badan waxaa hadda bilaaban doona imtixaanka qaranka bisha soo socota macnaheedu waxay fursad u heli doonaan bilicdan aragto quruxda badan iyo bii'adan in ay dhalinyarada u furantay ku aqoonsan karaan sida ay si la midana inay qayb ka noqoto baxdiga ama researchka ama cilmi baarista inay qayb ka noqoto macnaheedu waa idadiilo u soo laabatay ama hamigii dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan meel maktabad oo ay mataqaanay cilmi baaris ku sameeyaan wax ku akhristaan isla markaana waxay ka qayb qaadan doontaa kobaca aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed. waa buugaag waa yaalaan waana diyaar service macnaha ama adeegi loogu talagalay in buugaagtii laga qaadan karo ama laga akhrisan karo waa furantahay waa u furantahay waana u heli karaan waana ka codsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in wax allaale wixii agaba ama buugaaga ama qalab ay ugu deeqi karaan maktabadda qaranka inay la soo wadaagaan. maktabadda qaranka ayaa ka mid ah xarumihii dawladda ee ku burburay dagaaladii dalkeenu iminka ka soo kabanayo waxayna ahayd xarun barbaaraysa ubadka aqoonta iyo dhaqanka wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed waxaana la ii sheegay in cilmi baaris ay u imaan jireen arday ka yimaada dalal badan oo Afrika ah bari samaadkii. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.